بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada dhammaantiin waxaan rajaynayaa markaa saas u wadwado oo kale waa arki kartaan soo maahan saas markaa screenka u wadwado waa aragtaan marka insha allah caawa xaggaan ka bilaabi doonaa casharo foorarkiis ah oo socon doona ilaa 7 fadhi baan qaadan doonaa insha allah runtii waxa idin barayana ma ahan wax oo advanced ah ma ahan waa beginner qofka inuu maaragtay wixii maxaan ku dhahay to uu at least wax uun ka baran karo wey waxaan baranayno kuma dhahayo waxaan ku barayaa sida loo tirigareeyo marka waxa waaye marka meeshaan inooga bilaaban doonaan haddii alla yidhaahdo inbaa masid iisoo qoray waxaan waa maxay qiimooyinka xitaa waa geliyey waa zoom meeting yar isma dadka in la hagaa waqti ah baaskoorka waa haysataa soo gal mid faa'iiso cabdikariim qofka in aqbalo miyuu rabaa waxay aqbalaadna waa ku xiran aqbalaadan dadka weydiinaya maxay okay admit all marka saa wada ogtihiin horta marka koowaad arrintaasna saas ula socotaan casharo introduction waaye qayb walba waxaan kasoo qaatay inta ugu muhiimsan oo qof beginner ah looga bilaabi karo inaa idin wareeriyana ma rabo oo qofku waqti badan iyo wax badan iyo ka dhumaan marka saas ula socda hadda waxba ma hagi karno marka waxa weeye saas inaa ula socotaan marka caawa waxaan qaadanaa casharkii koowaad oo introduction ah iyo ereyada la isticmaalo marka forexiska lagu jiro iyo waxyaabaha qofka muhiimka ah oo u baahan yahay inuu maaragtay ogaado in uu barto si uu markaas cilmiga hadduu rabo inuu horey ugu sii gaaro horey ugu sii socdo uu maaragtay ugu sii socon karo kow waxaan horta bararaynaa oo marka hore isla soo qaadaynaa waxay tahay inaan marka hore bal ogaano horta muxuu yahay forex asalkiisu ereyga forex maxaa loo soo gaabiyey muxuu yahay inaan ogaano marka kadib baa wixii kaloo aan geli karno sii geli karnaa laakiin haddaan anagoon forex muxuu yahayba garanaynin haddii aan dhahno waa sii dhex gelinaa ereyadii kale aan sii gelinaa dee waa ku wareereynaa marka shay marka la baranayo shayga magaciisa horta wuxuu yahay waa in kow la barto marka kadib baa loo sii gudbi karaa waxa uu asaga sii cilmiga uu sii wato iyo wixii kasii dambeeya marka forexku wax kale ma ahan waxa loo soo gaabiyey for iyo extan waa foreign exchange market waxa loo soo gaabiyey suuq foreign ah oo yani suuq qalaad oo wax lagu kala sarifto wax lagu kala bedesho waana is a global decentralized or over the counter market for the trading of currencies waana suuq caalami ah oo decentralized waxa laga wadaa centralized ma ahan yani suuq hal qof maamusho ama hal meel laga maamulo oo hal qolo ama hal koox haysato ma ahan waa suuq caalami ah oo markaasi adduunkaas oo dhan qof walba oo internet iyo computer heli kara uu isticmaali karo oo uu geli karo oo ka shaqaysan karo marka suuqan waxaa laga wadaa macnihiisa waa suuq caalami ah oo decentralized oo hal qolo aan u xirnayn markaasi dadkaas dhan qofka internet iyo suuqa inuu galo access u leh oo dhan uu geli karo meeshuu dunida ka joogaba marka muxuu ka kooban yahay layidhi it includes all aspects of buying selling and exchanging currencies suuqan sidiisaba marka forex maqasho waa inay niyadaada kusoo dhacdaa inuu yahay suuq wax la iskala bedelanayo oo wax la gadanayo waxna lacagta marka la sarifayo marna lacagta waa la soo gataa marna waa la iska gadaa oo waa haysatay waa gadaysaa marna waa soo gadaysaa marka asaga dhanba waaba intaas waa buying iyo selling marka suuqa la gelayo ama lagu shaqaynayo waxaa la isticmaalaya wax la yidhahdo wuu buy gareeyey iyo wuu sell gareeyey wuu buy gareeyey haddaad maqasho macnaheedu waxa weeyaan lacagtan suuqa qofka wuxuu aaminsan yahay lacagtan inay qiimo yeelan doonto kor u kici doonto marka uu sii gadanayaa si ay qiimo ugu yeelato oo markay qiimo u yeelato faa'iido uu saas uga helo haddii uu soo la dhaho uu seel garaynayaana waxay noqonaysaa macnaheeda lacagtan wuxuu qofkan aaminaya inay hoos u dhici doonto markaa sidaa darteed waxay noqon doontaa hoosay u dhici doontaa oo wuu iska gadi doonaa okay marka waa inaad saas u fahantaa
kow labo saddex afar shan lix qof ay ilaa hadda ku jirtaa dhib male marka waa inaa ogaatid suuqan macnihiisa guud inuu saas yahay haddaa suuq forex maqashid waa buying iyo selling waana suuq decentralized ah waa suuq asaga dhan qofku u baahan yahay hadduu rabo inuu ku shaqaysto inuu u baahdo inuu helo internet iyo maxaan ku dhahayto iyo wixii meesha uu ka geli lahaa insha allah wuxuu qofka marka suuqan gelaya iyo waa arki doonaa wax looga baahan yahay laakiin horta inaad general saas ogaatid forexna loo soo gaabiyey foreign exchange forex wax bale ayaa kula noqon waa sarifka lacagaha qalaad intaas unbaa loo soo gaabiyey marka in terms of trading volume it is by far the largest market in the world waa suuqa ilaa hadda inta la og yahay suuqa ugu baaxad weyn oo markaasi adduunka maanta ka jira weeye suuqan okay marka suuqan waa decentralized saa sheegnay waa suuqa ugu weyn ilaa maanta adduunka suuqa ka jira waxaana soo raaca suuq la yidhahda credit market oo ah suuqa deymaha iyo waxyaabahaas la xiriira laakiin annaga hadda xooggeena waxaan saarayna waxay tahay waa forex iyo wixii la xiriira marka volume oo suuqan looga dhex shaqayso lacagta intay dhan tahayna waxaa lagu qiyaasaa ilaa maalintii inay marto suuqan lacag u dhiganta 7.5 markaasi milyan cubayd waxaa gashaa muud mise anaa ku saara muud anaa ku muud garaynaya ku muud gareeyay marka suuqan waa suuq saas ah saas inaa ula socotid meesha ku xigto oo kaleeto oo u gudbayna waxay tahay oo suuqan markaan ka hadlayno inaan u gudubno laisla fahno waxay tahay suuqan yaa involved ku ah yaa ka dhex shaqaysta yaa saameyn ku leh iyo waxyaabaha saameynta ku leh kow suuqa waxaa saameyn ku leh governmentskana waxay saameyn ugu leeyihiin dee lacagtooda baa la isticmaalayaa marka interest rate wax la yidhaahdo inay xadidaan lacagta suuqa maanta sarifka lacagaha caalamka inta loogu bedelanayo central bankiga iyo dowladda hoostaga waxaasoo dhan baa governmentyada saameyn ku leh dowladaha yani waxaa kaloo saameyn ku leh wax la yidhaahdo commercial banks oo ah bangiyadan ganacsiyada iyo waxyaabahaas ku shaqaysta ganacsiga xoogooda saara ayaguna saameyn ay ku leeyihiin waxaa saameyn ku leh central banks ama bangiyada dhexe ee dowladuhu leeyihiin oo ayaguna waxay saameyn ugu yeelanayaan inay suuqii sarifka iyo qaabka loo xadidayo iyo lacagaha caalamiga inta lacagtooda lagu sarifayo iyo waxaasoo dhan inay saameyn ku yeeshaan oo xadid u sameeyaan waxaa kaloo saameyn ku leh corporationisku waa ururada isku tegey halka magac oo kaleeto ku hadla oo kaleeto waa corporationist la dhahaa oo isla shaqeeya isku ajendaha isku maxaan ku dhahday aragtida ah corporationist kuwaasna ayaguna saameyn ay ku leeyihiin oo wax soo saarkii oo kaleeto ay controlayaan mararka qaar waxay aadayaan wax la yidhaahdo strike wax la dhahay samaynayaan dee lacagtii bay saameyn ku yeelanaysaa markaas waxaa kaloo suuqan saameyn ku leh wax la yidhahdo investment funds oo ah bangiyo ayaguna sidoo kaleeto investment ku sameeya oo suuqan ka shaqaysta bangiyadaas waxay saameyn ugu leeyihiin tusaale ahaan hadday lacag xoog leh oo kale maanta oo kale geliyaan suuqii hal dhinac oo kale u kaxayn karaan marka ayaguna sidaasay saameyn ugu lahaanayaan waxaa kaloo suuqaa saameyn ku leh traderskuna cid kale maahana waa idinkoo kaleeto hadda suuqii baranaya iyo dadka suuqa ka shaqaysta ama loo yaqaano retail traders ama individual traders dadka lacagaha yaryar wata oo suuqan ayaguna raba inay ka shaqaystaan marka dadkaas waxaa lagu qiyaasaa ilaa qiyaas ahaan inay dhan yihiin 30 ilaa 35% inay dhan yihiin saasaa u malaynayay markii ugu dambeysay haddayse hadda kasii badanin garateen marka suuqan dadka saameynta ku leh oo ugu xoogan waa dadkaas miitinka miyuu jarmay soo laguma jiro qof baa wuxuu soo qoray miitinka ugu jarmay I think in dadku imaqlayaan codkaygana uu shaqaynayo marka asaga ka go'aa laga yaabaa waa ka soconaynaa waqtiga muhiim ah next point arna inaan ka hadalno suuqan maanta waxay tahay inaan ka baranno wax la yidhahda currency of market suuqan forex markaa soo fahantay inuu forex yahay foreign exchange loo soo gaabay suuqa adduunka ugu weyn uu yahay next oo ku xigsatay suuqan dadka ka shaqaysta iyo inaa baratay lacagta looga shaqaysto maalintii inta marta inay 7.5 trillion lagu qiyaaso ama ka badan hadda waxaa baranaynaa marka lacagaha ugu waaweyn suuqan looga shaqaysto maxay tahay marka lacaga tiro badan lacag aan ku jirin suuqan wadamada caadiga weli horumarsan way yar tahay intooda badan way ku jiraan
laakiin lacagaa ugu sii xoogan toddobadan lacagood oo aad baran doontid meelo badan aad ku arki doontid abbreviationka iyo qaabka loo soo gaabiyo inaad baratidna ay muhiim tahay aan niyadda ku haysid because mar walba qoraal ma lagu qorayo ayagoo gaagaabsan baa arki doontaa marka waa inaad niyadda ku haysaa marka the main currency oo suuqan forex marka laga hadlayo ama king oo suuqan boqor u ah waxa weeyaan lacagta United States dollars waa lacagta dollarka Mareykanka I think Soomaalidu aad ay u taqaanaa uma baahno in aad loogu sharaxo hata dad badan oo Kenyaan waddanka aniga aan joogo oo kale tagay qaarkood dollar weligood ma arkin laakiin qof Soomaali ah oo aan dollar arkin inuu aad u yar yahay baan u malaynayaa ama maba jiraba maxaa yeele waa wax lagu xisaabtamo hadda lacagteeni waddanka dee hawaday ka baxday oo waa ogtihiin oo cidna ma isticmaasho marka waxaan u malaynayaa in aad loo wada yaqaano taas marka waxa ku xiga lacagta boqorku waa suuqan oo dhaqaajisa oo wax walba u tarta oo saamaynta ugu xooga suuqa forexiska kule waxay tahay in markaasi ay noqoto lacagta dollarka lacagta kusoo xigta waa lacagta GBP ama Great Britain pound lacagta ingiriiska oo ka yara qiimo sarreysa lacagta dollarka laakiin lacagta ugu koobaad oo la isticmaalo waa maxay waa lacagta dollarka laakiin lacagtan qiimo ahaan ka sarreysaa dollarka ma ahane laakiin lacagta koobaad maaha lacagta koobaad waa USD marka waa inaad niyadda ku haysaa waxaana loo soo gaabiyaa marka la qori doono USD da saasay usoo gaabsasan tahay niyadda ku hay Great Britain ayadana saan laguguma qorayo mar walba GBP baa lagu qorayaa marka saa ku hay lacagta kusoo xigta oo saddexaad waxay noqonaysaa lacagta yuuraha loo yaqaano lacagta yuurahana waa garanaysaan dadka haddaa kolley dee ilaa secondary ka baxdeen aad tihiin waa lacagta saddexaad ee suuqan ayaduna ugu xoogan waa lacagta ay isticmaalaan wadamadan European Unionka la yidhahdo ama EU-da waa 7 wadan mise waa 9 wadan labaa ku biirtaa u malaynaa 5 miyaa ma aqaan adiga waa 7 ilaa 9 wadan baa iyaduna kusoo xigta oo lacagaha ugu badan ee suuqan looga dhex shaqaysto ama laisku bedbedelo ka mid ah lacagta kusoo xigta waa lacagta Canadian dollar waxaa laga yaabaa qaybta group 5 iyo waxbaa ku jirtaan waa garanaysaan Canada waa lacagta dollarka Canadianka ayadana loo soo gaabiyo CAD saasaa loo soo gaabiyaa waxyaabahan basic ah qofku hadduusan baran hadhow way ku adkaanaysaa inuu gudaha suuqan usii galo ama uu cilmigii uu si fiican usii barto haddaada waxa aqoon quraan dee alif ka halaabay albaqara kama hagaago marka inaadni degdegin oo waxaan aa waqti gelisaan baa idinka codsanaya oo waxaan horta inta basica aa barataan lacag waa samayn doontaa laakiin maxaa ka horeeya lacag inaad samaysid waa inaad wixii cilmiga horta barataa cilmigiisii lacagta ku xigta waa Australian dollar Australia waa garanaysaan waddanka aad ku shisheeya Soomaali badan baa isagana joogta AUD baa iyadana loo soo gaabiyaa lacagta ku xigta ee shanaad waxa weeye waa lacagta loo yaqaano Japanese yen ama JPY loo soo gaabiyo Japanese yenku waa lacagta ee almost lixaad ee ugu badan ee iyaduna aad looga isticmaalo lacagta kusoo xigta ee toddobaad oo ugu waaweyn lacagaha ugu waaweyn ka mid ah waa lacagta New Zealand dollar New Zealand Soomaali badan ma joogto inta badan hadday tagaanna way kasoo tagaan oo Australia ka hodansan marka Australia inta badan yimaadaan New Zealand dadka haysta baasaboorradoodana waa waddanka keliya oo Australia bila fiisa ku gala waa waddanka New Zealand baa la dhahaa dadka baasaboorka New Zealand marka Soomaali waagi hore wax yar tageen waa waddan aad u fog I think waxaan u malaynayaa Dubai oo kale haddaad diyaarad ka raacdid wuxuu kuu jiraa almost 19 saacadood oo diyaarad ah marka waa garan kartaan waddan saas u fog weeye Soomaali aad uma jecla dad badanna kama joogaan magaalo la oran jiray Christchurch I think inaa maqasheen oo masaajid muslim lagu weerarayay baa ka mid ah oo magaalooyin ku yaala caanka marka lacagtaasay ka mid tahay iyaduna waxa ku xiga oo aan ka hadli doono hadda waxay tahay marka forex laga hadlayo qofka la rabo inuu barto bilowga ah waxay tahay iyaduna wax la yiraahdaa timing waqtigan wax kale ma ahane suuqan xillina wuu furan yahay xillina wuu xiran yahay oo lagama shaqaysan karo marka xilliga uu furan yahayna asaga laftirkiisa waxaa laga yaabaa inuu yahay xilli maaragtay uu sii kala fiican yahay uu jirto marka uu saa u furmo ugu fiican yahay wuxuuna ugu liitaa marka uu wax badan 2 saacadood ama 3 saacadood uu suuq walba uu furan yahay marka timing kale inaad ogaatid waa la mid Africa markaad joogtid waqtigee ku anfacaya waqtigee trade garay kartaa waqtigee suuqan geli kartaa inaad ogaatid marka waqtigan aan hadda soo qoray waa waqtiga aan anaga joogno East Africa I think inteena badan East Africa joogno Kenya iyo Soomaaliya u badan u malaynayaa dadka hadda meeshan ku jira marka waxa ugu soo horeeya suuqan xagga u durkiya wax yarayso oo aragtaan igu weynaado
loo jeedaa rajeynaa Sydney sessions marka waxaa jira wax la yidhahda sessions ama time kalfadhi camal session waa kalfadhi camal kalfadhiga Sydney loo yaqaano East Africa waxay u tahay markay u tahay 3 am buu furmaa waa suuqa ugu soo horfurma wiigga tusaale ahaan hadda maanta kale axad weeye waxaa ka ilaaway suuqa wuxuu shaqeeyaa intiisa badan inkastoo hadda lacagtan kareebtada la yidhaahdo ayada 24/7 ay tahay 7 days ba lagu trade gareyn karo gaar ahaan BTC iyo USD lagu bedelayo laakiin inta kaleeto lacagahan kaleeto dhan aan sheegnay waxay shaqeeyaan from Monday to Friday shantaas maalmood bay shaqeeyaan waliba xilliyada qaarkood uu xiran yahay wixii ka dambeeya 1 oo kale markay Afrika noo tahay waxaan ka wadaa hadda wuxuu xirmaa 6 saac ilaa 7 saac suuq halkaas uu xiran yahay 1 buu dib u furmaa waa arki doontaan kole markaa fiirfiirin doontaan abka laga dhex isticmaalo laga galo iyo marka sessions wax la yiraahdaa jira sessions kan magacyo kale leeyihiin Sydney session jira wuxuu East Africa markay u tahay format 3 am wuxuuna xirmaa 10 am markay subax barqadii tahay suuqi dhan ma wada xirmayo laakiin volume-kii dadka ku jiray wixii dhan baa hoos u dhacaya marka recommended ma ahan yani lama soo jeediyo inaad ku trade gareyso xilligaas maxaa yeelay dad badan kuma jiraan waa laga kala baxaya wuu xirmay saasaa laga wadaa laakiin caadiyan wuu furan yahay oo suuqa ganacsiga iyada caadigaaba waa aragteen dee xilli waxaa jirta suuqi asagoo generally furan laakiin aysan dad badan joogin marka saasoo kale camal weeye suuqi qam ma ahan oo wuxuu xirmi doonaa markuu suuqa dhan wada xirmayo oo annaga ay noo tahay 6 saac habeenimo hadda marka qaar marka xilliga qaboobaha ay galaan Yurub iyo Mareykan iyo wuxuu xirmi doonaa 1 ilaa 2 hadda laakiin wuxuu xirmaa qaboobaha lagu jiro kuleelaha ku jiraan summer time ku jiraan wuxuu xirmaa maxaan ku dhahay 12 ilaa 1 buu xiran yahay markaas asaga inaa qam ah ma shaqeynayo marka laga reebo lacagaha kareebtada oo ay u shaqeynayaan wax soo dirdiray cilada jirta hadduu ii soo qabtay inuu student helo walaala meesha soo gal khayr allah ku siiyo aan ka soconno waxaan u malaynaa dadka intiisa kale waa ay maqlaan wax hadda calasho qaba uma jeedo marka saas u ogaada xilligaas waa baran doontaa waxaan waxba hadda waa iska rehearsal waa adaa indhaha ku arki doona xilliga kale waxaa jira Tokyo wax la yiraahdo isku waqti furmaan waa Tokyo marka lacagtan Sydney lacagaha lagu trade gareyn kara xilligaas inta u dhaxaysa waa lacagaha meesha ku qoran AUD waa idin soo sheegay waa Australian dollar CAD waa Canadian dollar AUD HEF labadana la isku sarifay waaye macnaheedu waxa saasa laga wadaa AUD HEF maxaa laga wadaa chef idima sheegina u malaynayaa waa Switzerland franc waa chef loo soo kaabiyaa lacagaha mainka kuma darin way ku jirtaa laakiin admit fahmo alaska soo gal AUD chef lacagaha ay ku jiraan oo dhan oo Sydney Australia la xiriiro oo dhan baa lagu trade gareyn karaa AUD JPY waa idin soo sheegay JPY AUD NZD waa idin soo sheegay waa Australian dollar New Zealand dollar lagu bedelay GBP JPY waa idin soo sheegay waxaasoo dhan waa idin soo sheegay NZD JPY waa idin soo sheegay waa New Zealand dollar Japanese yen marka xilligan intaas u dhaxaysa 3 am markay noo tahay ilaa 10 am maxaan niri waxaa furan suuqa la yiraahdo Sydney session xilligaasaa furan marka waa xilli ay adag tahay badanaa in la trade gareeyo oo xilliga Afrika waliba oo xilli la hudaa xilliga ku xiga waa Tokyo session oo ay is leeyihiin kuwan laakiin xoogaa uu ka dambeeyaa asoo muddo 12 pm asaga xirmaya duhurkii mana xirmaye yani waxa ku dhacaya macnaha liidasho ku dhacaysa oo ah macnaheedu ay tahay yani dad badan kuma jiriyaan xilligaas suuq hoos u dhacaya ma xilli lagu trade gareyn kara ma aha xilli marka lacagaha Tokyo la geli karana waa lacagii Japan Tokyo waa garanaysaa waa caasimada Japan waa lacagaha JPY oo dhan la xiriir JPY USD AUD JPY Euro JPY NZD USD NZD marka waa garanaysaa oo iyadu waa Sydney laakiin maadaama isku xilli ay tahay waa lagu trade gareyn karaa NZD JPY iyaduna New Zealand oo JPY lagu sarifay New Zealand dollar oo lacagta Japanese yen-ka xilliga saddexaad waa xilliga loo yaqaan London session London session-ka waa xilliga inta badan Afrika la trade gareeyo waa xilliga ugu fiican suuqa wuxuu hadda furmaa 10 am laakiin waxaa jira wax la yiraahdo Pre London iyo Pre New York iyo Pre Sydney iyo Pre Tokyo Pre London iyo wax kale ma ahane waa xilligan uu suuqa officialka u furmayo hal saac amal ka horeysa oo dadku ay bilaabayaan inay suuqi soo galgalaan laakiin sida officialka 10 am buu furmayaa hal saac ka hor waay marka hadaa Pre London maqashid ama Pre New York aan maqashid xilliga officialka oo suuqu markaas uu furmayo hal saac ka hor waay ama 30 daqiiqo ka hor kaleeto
marka hadda London sessionka 10 am waaye wuxuuna xirmaa 6 p.m. markay maqribkii noo tahay annaga East Africa time. lacagaha lagu trade gareyn karo xilligaasna waa lacagaha Ingiriiska iyo wixii la xiriira GBP USD Euro Chef oo ayaduna xilligeedii furan USD Chef wax kale ma ahana waa lacagta Switzerland franc GBP JPY lacagtii Japanese-ka Great Britain pound oo lagu bedelay Japanese yen. marka waxaa niyaddaa ka qaban doontaa waxba hadda ha isku adkaynin haddaa marka saa ula socotid iyo war arkaysid marka dambe caadi ay kula noqon doontaa waqtigu caadi kula noqon doonaa waxa soo raaco ayagana waqtiga ugu muhiimsan ah waa lacagta waa xilliga loo yaqaano New York session oo ka mid ah xilliyada suuqu ugu fiican yahay volume ahaan dadka ugu badan inta badan ay ku jiraan maadaama aan sheegnay lacagtan suuqa ugu boqorsan waa lacagta loo yaqaano USD-da marka xilligeeda markuu furmayo ka hadal ma lahan ayada hadda xilligan aniga idiin soo qoray waa hadda marka aan qaboobaha lagu jirin xilliga qaboobaha 3 p.m. ma furmaya 4 p.m. ma furmi doonaa oo 3 p.m. waxay kuu noqon doontaa wixii loo gaaro November بريميو يكون نقطة لكن هذا هو نيويورك أوبن عادي نيويورك سيشن أوبن كيسي ومركب بريميو بوحو نقطة يا تو أما تو تاتي إيميلها وحي لو قارو وحونا حرما إلا هبينكي ساق دحي marka laakiin xiliga ugu fiican yahay waa markuu furmo ilaa 3 saac 4 saac ugu horeysa waana sida caadiga ah suuqyada adduunka oo dhan hatta suuqyada businessyada caadiga ah xiliga ugu fiican wax in la gataa ay fiican tahay waa xiliyada markii saas loo furo oo cabaar uu maaragtay joogo sorry على هذا domina gar lacagaha markaas furan marka waa lacagaha USD la xiriira lacagaha lagu trade gareyn karo waa Euro USD USD JPY GBP USD Euro JPY Euro maxay JPY u furan tahay because Euro xilligeedii baa wali furan soo ma jeed 6 p.m. waay marka maadaama xilligeedii la joogo waa caadi way furan tahay waa lagu trade gareyn karaa waliba volume buu helayaa laakiin volume euro USD helaysa iyo euro JPY xilligaas waxa volume iyo dhaqaaq fiican yeelanaysa lacagta USD da lacagaha ay la socoto laakiin lacagaha kale maadaama xilligoodii la joogo wali waa lagu trade gareyn karaa marka USD chef baa kamid ah chef waa idin sheegay waa Switzerland franc waxaan ka wadaa waa Switzerland franc waa lacag xoogaa qiimo leh euraha wax yar ka sareysaa baa u maleynaya hadda waayada lama socdo anu kuma trade gareeyo marka maxaa soo raaca Frankfurt inta badan waa Londonka xilligiisii uu hal saac ka horeeya Frankfurt Open haddaa maqashid waa xilligii New York Londonku wax yar ka horeeya hal saac waa ujeedaan waa 9 am xagaana 10 am bay ahayd waxa soo raaca marka inta badan xilliga la isla yaqaan waa xilliyadan wali waa saddex baan ku soo koobo Tokyo session kala kala yiraahdo oo isku waqti ah 3 am wada furma wax yar ay kala dambeeyaan London session ka soo raaca waxa soo raaca New York session saddexdaas ugu muhiimsan waxaan kaleeto kuwan kaleeto way iska soo raacaan Sydney-da iyo New Zealand iyo way soo raacaan ma ahane aad caan umay ahaan waa laga caansan yahay marka waxa muhiim ah halka markaan maray inaan sheego suuqu xilligu ugu fiican yahay waxay tahay zoomku is jari doonaa marka hadduu is jaro mar kale soo diraya wax dhiba ka walwali waxaa noo hartay mana sir rabe 10 daqiiqo camal noo hartay inaan ku dhameyn karnaa laga yaabaa ya 9:46 مباهنين أبغير قرين نحرو إلى العقد هي هدارتين أو وقت أوبن سوى كان نقول لكن أنا هنا كوبنا وربنا marka maxaa idin iri xaggan waxa muhiim ah inaan sheegaa ku iri suuqa xilliga ugu fiican yahay badanaa waa xilliga ay soo gaaraan laba suuq oo furan tusaale ahaan London session iyo maxaan ku dhahay to New York session way soo gaaraan saa u jeedaan soo ma jeedaan London session ku goormo ahaa baan 10 am wuxuuna xirmaa 6 p.m. marka inta lagu dhex jiro maxaa furmaya New York session-kii waa furmaya 3 p.m. ayadoo wali lagu dhex jiro London-kiina furan yahay waa xilliga suuqa ugu fiican yahay sidoo kale maxaa soo gaaraya Sydney session-kii iyo London session-kii way soo gaarayaan laakiin waxaa si fiican isku soo gaaraya markuu xirmayo furmaya kan isma soo gaaraya Tokyo session-kii iyo maxaa soo gaaraya London session-ka maxaa yeelay 12 p.m. buu xirmayaa kana 10 am buu furmay asagoo wali furan marka maxaa dhacaya 6 p.m. buuna xirmayaa marka asagoo wali xirmin Tokyo session London-kii furmaya waa xilliyada suuqa ugu fiican okay ana way iga baxbaxayaa ku soo noqo abay dhima lahan hadduu ka baxbaxayo waxba ma sameyn karno waqtina uu nagu socdaa ku soo noqo markuu ka baxdo dib u soo gal dhib ma lahan marka maxaa niri xilliga ugu fiican xilliga waa xilliga labada suuq is soo gaaraan
waxaa la rabaa sawir yar oo waxaa jiray waa ka saaray marka cashka diyaarinayay maaqasi uu iga baxay oo muujinaya xilliyada suuqyadu is soo gaaraan laakiin xaggaan aad ka dareemi kartaa tusaale ahaan Londonka iyo New York way soo gaaraan Tokyo iyo London way soo gaaraan New Zealand yuu soo gaaraa 9 p.m. oo farmaaso cidna ma soo gaaro ilaa 6 a.m. ha wuxuu soo gaaraa Sydney wuu soo gaaraa marka waqtigaas asaas isugu fiirfiirinaysaa wax kale oo meesha yaala ma jiraan ku socono marka waxaan hadda gelaynaa suuqa markaa baranaysa waxaa jira waxyaaba terminology ereyo la isticmaalayo aa u baahan tahay inaad baratid oo aa ogaatid ereyadaas maxaa ka mid ah kow aan ka bilownay waxaa loo yaqaana bibis bibisku waa the movement of the market 1 bib 2 bib 10 bib aa maqli doontaa bibkuna wax kale maahana waa dhaqaaqa yarkaayo dhigta suuqa dhahayo yar yariista baa la dhahaa bib dhaqaaqa uu samaynayo suuqa waxaa loo yaqaanaa wax la yidhaahda bib waxayna ku xiran tahay dhaqaaqaas way kala duwan yihiin xadigooda iyo lacagta ay kaa cuni karaan iyo waxaasoo dhan which depends on the money you are trading that time waxay ku xiran tahay lacagta aad markaa ku trade garaynaysid oo markaa ku trade garaynaysid GBP JPY iyo markaa ku trade garaynaysid Euro USD isku bid ba noqonayaan waa arki doonaa insha Allah bibiska sida loo xisaabo casharada aan qaadan doono ay kamid tahay kala decimal points baa laga xisaabiyaa tusaale ahaan Euro USD da decimalka u dambeeyo afraadka fourth decimal point baa bibkeeda laga xisaabiyaa halkeeda bib halka GBP JPY lacagaha ay JPY ku jirtana laga xisaabiyo second baa u malaynaya inuu ahaa second decimal point yaa laga xisaabaya marka waa arki doonaa umana baahna waliba inaad isku wareerisid systemyada lagu shaqeynayo baa bibki iyo wax walba ku xisaabaya adigu waad jiidaysaa inta bib iyo waxa dhan waa arki doontaa marka laakiin inaad iska ogaato inay bib jirto waa arki doontaa waxa kaloo jira wax la yiraahdo waa 10 dhan marka bibisku insha Allah waa gaari doonaa laakiin hadda inay bib dhaqaaq u yahay ogow waxa ku xiga broker wax la yiraahdo jira marka forex laga hadlayo waana company-ga idin dhaxeeya adiga between you oo retail trader ka dadka lacagaha yar watay iyo marketka suuqa waan idin sheegay suuqan inaan ku bilaabay la rabaa aan sheego markii la bilaabayay waagi hore wixii 1990 ka horeeyay waxaa jiray waxaa isticmaali jiray bangiyada waaweyn iyo dadka lacagaha aadka u badan wata wixii 1991 ka dambeeyay baa loo ogolaaday suuqan inay geli karaan dadka lacagaha yar yar $100 $500 $1,000 lacagaha oo yar wata marka retail trader ayaga la dhahaa waana dadkiina hadda raba inaad barataan dadka hore ugu jira oo tiro oo boqolkiiba 30 ilaa 35 lagu qiyaaso hadda casharada forex akhrisid waa arki doontaa intii qiyaaskii marka broker wax la yiraahdo jira waa mukhallaskaas wuxuu idin dhaxeeyaa adiga iyo suuqi weynaa marka qaabka loo xusho iyo cashar dhan ku qaadan doonaa I think inuu casharka lixaad yahay meelaha laga fiiriyo regulationskiisa wadanka uu ka dhisan yahay waxaas oo dhan baa la fiiriyaa marka la dooranayo aragti inaad best broker and broker ugu fiican mukhallaska ugu fiican aad dowlad oo lacagta aragti inaad ku shubatid stop loss wax la yiraahdo maqli doonta ama SL ku wax kale ma ahan waa orders are used to put a limit on potential losses from the trade waa khasaaraha iga jooji waa limit iyo meel la dhigayo qofka uu markuu la suuqan horta khasab waa khasaaraysa hadda suuqan faa'iido kaliya u soo doonatay hadeer isaga bax khasaare waa lama huraan maxaa yeelay waxan waa ganacsina macquul ma ahan in maaragtay uu dif bila khasaare yahay hadda sidoo maqashay ganacsigaas waa bila khasaare ka carab maxaa yeelay waa been xaraam buu noqonayaaba soomina garan ganacsi walba khasab in mararka qaar la khasaaro waa lagu khasbaya marka isagoo wax kala maana khasaarahi iga jooji waaye marka si automatic uu kugu joojinaya salaam cadaysa suuq numberskaas xaqaas markuu gaaro xisaabtaas aniga kuma sii jiri karo iga xir marka uu ka xiraya brokerkii baa ka xiraya broker hadda idin soo sheegay take profit kanu ka soo horjeeda suuqa marka faa'iido sameynaysid ina iska dhex taagnaati lama rabo okay suuqa waxa la rabaa marka meel hebel uu ku gaaro intaas faa'iido ka heshin ka baxdin ay isaga bixi kartid marka waa ka baxaysaa asagana wax kala ma ahana waa orders la dhiganayo waa limit number meel la dhigayo lagu qorayo insha Allah markaan baran doono maxaan ku dhahayto MT5 ka oo 10ka labaad noo noqon doona ba arki doontaan waa numbers la qorayo oo bibiski iyadoo laga xisaabtamayo oo meesha lagu qorayo oo ka joojinaya khasaarihii limit orders that are closed when a specific profit level is reached marka faa'iidada xadiga u baahan aragti inuu ku gaaro waa iga jooji leeyahay uu ka joojinaya marka brokerki waa ka saaraya stop loss to entry stop loss to entry ama waxa loo yaqaano inaan meeshan ku soo qoraan rabay I don't know why waxa loo yaqaana oo kaleeto BE wax kale ma ahna waa break even baa loo soo gaabiyay waa stop loss to entry waxa weeye suuqan it's a moving your SL waa SL ka hadda aan soo barana khasaarihii oo aan keenaysi to entry meesha aad ka gashay suuqa tusaalhaan suuqa faa'iido ku qaaday
faa'iidada inta aad rabtayna weli ma gaarin marka maadaama uu faa'iido fiican ku wado waxaa la isticmaalaa wax la yidhahdo BE ama break even oo ah suuqan hadduu dib u soo noqdo inuu khasaare igeliyo ma rabo meesha aan ka galay iga saar lafahaaga caynsaa la dhahaa marka yaa lafahaaga caysoo midna maqal wax kale maahan waxa weeyaan yaana khasaare yaana faa'iidin faa'iido kama rabo faa'iidii uu iga soo noqday yuusan khasaare gelin iga saar suuqa marka brokerkii baa kaa xiraya markuu meeshaas gaaro sleevage I think inaad dib u bilaabi doono laba daqiiqo hartay sleevage wax la yiraahdaa jira sleevage ku wax kale ma ahane wuxuu dhacaa suuqa waa order aad dhigatay oo stop loss ah badanaa dadka stop loss ku buu khasaare keenaa de profit hadduu ku dhaafo dhib male waa order aad dhigatay inuu kaa saaro stop loss oo different rate kaaga saaraya meel ka duwan aan soo koob wax weeyaan suuqan waxaa tiri markuu marayo 2 hadda 1.2228 markuu marayo kale euro USD baa ku jirta oo profit oo khasaaro maradu hadda intaas khasaare igeliyo oo khasaaro igu hayaan intaas oo bib ay tahay iga saar marka muxuu samaynayaa marka brokerada qaarkood waxay samaynayaan meelaha waxyaabaha lagu doortay kamid tahay uu dhaafinayaa meesha khasaaraha aad dhigatay oo tusaalahaan lotka hadduu weeyahay dee khasaaro badan buu kugu daray lot wax la yidhahdaa jira waa arki doonaa next waaye lotka hadduu weyn yahayna khasaaro badan uu gelinaya lotka hadduu yar yahayna khasaaro yar uu ku gelinayaa marka waxa weeyaan wuxuu dhaafinayaa slivage-ku meeshii ah khasaaraha kugu talagalay buu dhaafayaa markaas waxaa la dhahaa slivage baa dhacay slivage is more likely to occur in the forex market when volatility is high wuxuuna dhacaa inta badan marka suuqa dhaqaaqiisu uu xoogan yahay yani dad badan ku jiraan ama news badan soo baxayaan iyo waxaas dhaqaaquna muxuu u badan yahay behaviors new to news events news waaweyn baa jira news waa baran doonaa wax la yiraahdo newsku waa economic news waa news dhaqaale la xiriiro newsyadii warkii Soomaalida iyo waxyaabahaas ma ahan waa economic news hadda forex marka lagu jiro hadda news maqashid waa economic news I think in terminology uu ku jiro uu noo imaan doonaa marka badanaa goormuu dhacaa or during times when the currency bay is trading outside big market hours ama wuxuu dhacaa marka currency-ga iyo xilliga aad trade gareynaysa ilaa waa anaga hadda timing-ka soo barayna suuqa xilliyadan uu suuqu furan yahay ugu fiican yahay in lagu trade gareeyo marka xilliga aad ku jirto uu yahay xilli aan munaasib ahayn oo xilliga loogu talagalay tusaale ahaan isniintoo kale waxaa ku jirta maqribkii BJP way ku jirta dee xilligaas camal dhaqaaq fiican male wuu iska boodboodayaa waxaa jira wax la yiraahdo waxaa jira wax la yiraahdo muxuu ahaa meeshaan uu ku jiraa waa umaleynaa waaba ilaaway muxuu ahaa I think waa arki doonaa waa ilaa waxaa jira wax la yiraahdo suuq markaa galaysid meesha aad ugu tala gashay maana meel kale uu ka furaa marka waa baran doonaa ereyga waa liqay maaqa wuxuu ahaa marka adiga muhiimadu waa in general intaas adugta wuu shari doonaa waa ka gaarsiinaya halka daqiiqo hartay waxaa jira wax la yiraahdo sidoo kale lot size size-kuna wax kale ma ahan waa lacagta suuqa aad dhiganaysid oo tusaale ahaan qofka $100 ku trade gareynayo suuqan kula jira iyo qofka $210 suuqan ku trade gareynaya isku lacag ma dhigan karaan okay marka waa inaad saa u ogaataa lot size-ku waa unit of measurement that standardized